الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، ولا لها شرفت بدنو ميل والبعد جوكتان يسي والبعدين لسعتان كسر دوادا حلقتين الشناد برنامج كيني برشد دعوين كي كسقناتي حبيب كينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وحان هروسو قادناي طبان سيديد دعوه وكسقناتي نبينا عليه الصلاة والسلام oo ka mid ah ducooyinkii jaamica ahaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday. maantay waxaan bilaabaynaa ducadii 19aad ayaan bilaabaynaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay. allahumma inni as'aluka athabata fi al-amri wal-azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka mujibati rahmatika wa 'azaa'ima maghfiratik وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ducadan qiimaha badan ayaan maanta qaadan doonaa insha Allah ta'ala. waa duco cajiib ah oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku duceysay jiray salaada dhexdiisa, saxaabadiisana uu la dardaarmi jiray sidii ka sugnaatay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Shaddad ibn Aws ayaa waxaa laga wariyay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay: yaa Shaddad ibn Aws, Shaddad ibn Awsow, idaa ra'ayta an-naasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fidda, dadka haddii aad aragtid inay macnaha keedsadeen oo akoonadooda ay ka buuxsadeen dahabka iyo fidada, adigu kalimaadkan keedso. kalimaadkan waa ducadii hadda aan akhrinaynay, waa kalimaadkani. marka ducadani runtii waa duco ahmiyad khaas in la siiyo u baahan oo la xifdiyo laguna duceysto salaada dhexdeeda. haddaba aan macnayno macnaheedu waxaa weeyaan: allaahumma innii as'aluka athabaata fi al-amri, ilaahu waxaan ku weydiisanaa athabaata fi al-amri, inaan ku sugnaado arrinta. al-amru waxaa loola jeedaa diinka. waxaan ku weydiisanaa ilaahayow inaan diinka ku sugnaado. athabaata fi al-amri sidii ducadii hore aan usoo qaadanay oo ahayd: allaahumma yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik, ilaahu allaha quluubta gedgediyow qalbigayga ku sug diintaada. ducadaasi ayay la macno tahay. allaahumma innii as'aluka athabaata fi al-amri. waxaa ka mid ah wal-caziimata cala ar-rushdi, ilaahu waxaan ku weydiisanaa wal-caziimata ayaan ku weydiisanaa. yacni caziimadu waxaa waaye aljiddu fi l-amri, arrinka in lagu dadaalo. diinkii oo hadda ilaahay aada weydiisanaysa inaad ku sugnaatid, inaad ku dadaashid, yacni oo aad fulisid wax allaala wixii hanuun ah oo diinkaasi uu faraayo ayaa loola jeedaa. yacni alcaziimata cala rushdi waxaa waa inaad diinkii ku dadaashid oo juhdi aad gelisid, haddana wax allaala wixii hanuun ahoo diinka uu ku faraayo oo ay macnaha asal ay u yihiin ilaahay rasuulkiisii in la adeeco, inaad fulisid, go-aanna aad u yeelatid. walcaziimata cala rushdi sidaasi ayaa loola jeedaa. caziimadu waxaa waaye alqasdu aljaazim almuttasilu bilficli, waa go-aan, yacni waa casmi go-an oo labalaba aysan ku jirin, kaasoo lala xiriiriyey ficil. rushdiguna waxaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la adeeco iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam. wa as'aluka muujibaati raxmatika, ilaahayow waxaan ku weydiisanaa naxariistaada waxyaabaha waajibiyo. waxaa loola jeedaa yacni aqwaasha iyo afcaasha iyo sifaadka oo waajibinayo ilaahayow naxariistaada inaan dhex galo, taasoo sababteeda aan naxariistaada ku gaarayo ayaan ku weydiisanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ayib, wacazaa'ima makfiratik, wacazaa'ima makfiratikana waxaa loola jeedaa ilaahayow waxaan ku weydiisanaa inaad ugu arsuqdid acmaasha iyo aqwaasha hadda aad yacni weydiisatay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waajibinaya naxariistiisii, kuwaas haddana inaad yacni oo aan go-aansaday oo aan sameeyey inaad igu arsuqdid haddana makfiradaadii, oo aan ka helo wanaaggaas aan sameeyey iyo khayrkaas aan sameeyey oo adigu aada igu arsuqday inaan ka helo dembi dhaaf, maadaama yacni dembi dhaafka uu yahay wax qiimo badan oo qofkii ilaahay uu dembigiisa dhaafo uusan cadaabaynin.
in macnaha aan ka helo dembi dhaaf. marka waxaa loola jeedaa wa as'aluka muujibaati raxmatikana sidaas ayaa loola jeedaa, wa cazaa'ima maqfiratikana saasaa loola jeedaa. wa as'aluka shukra nicmatik, ilaahow waxaan ku weydiisanaa nimcadaada faraha badanne oo aan la soo koobi karin shukrigeeda inaad igu arsuqdid. nicmooyinkaas faraha badanne oo aan la soo koobi karin, maxaa yeelay nicmooyinka faraha badanahoo ilaahayna siiyey tabaaraka wa tacaala haddii aan ku shukrino waxay inoo waajibinaysaa, yacni shukrigaasi waxaan ka helaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala ou inoo siyaadiyo nimcadaasi, oo ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr fara badan iyo barako badan oo noogu siyaadiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waid ta'adana rabbukum lain shakartum la asiidannakum. waqti ilaahay ou yacni idin ogeysiiyey yacni haddii aad igu shukrisaan oo nimcooyinkayga aad ku shukrisaan waan idin siyaadinayaa. marka maadaama nimcadii siyaadadeedu ay tahay shukriga ilaahay tabaaraka wa tacaala, waxaan ku weydiisanaa ilaahayow nimcadaad igu arsuqday inaad shukrigeedana aad igu arsuqdid. wa xusna cibaadatik, waxaan ku weydiisanaa cibaadadaada wanaageeda ayaan ku weydiisanaa ilaahayow. cibaadada wanaageeduna waxaa waa cibaadada in la sugo, cibaadada in lagula yimaado nidaamkii lagula imaanayo midka ugu kaamilsanaa oo ugu dhammaystirnaa in loogu yimaado, oo la ilaaliyaa, yacni in la ilaaliyaa ayaan cibaadadaasi shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo in la ilaaliyaa oo wejkii ugu dhammaystirnaay lagula yimaada ayaan ku weydiisanaa ilaahayow. wa as'aluka qalban saliiman, ilaahu waxaan ku weydiisanaa qalbi saliim ah. qalbi saliim ah maxaa laga wadaa? qalbi oo ka dahirsan dunuub iyo cuyuub ayaan ku weydiisanaa ilaahayow. allahu akbar, waa duco cajiib ah runtii. ilaahu waxaan ku weydiisanaa qalbi saliim ah, waa kaasa ayaan ku weydiisanaa oo ka dahirsan dembiyaalo, cuyuub, yacni cuyuubta iyo dembiyaalka iyo waxyaabahaas waxaa ka mid ah oo loo yaqaano amraad alquluub. shakigiyaa ka mid ah, waxaa ka mid ah yacni shirkigiaa ka mid ah, waxaa ka mid ah istutuskii, waxaa ka mid ah isla weyninkii, isla camal weyni, waxyaabahaasoo dhan ilaahay oo qalbi ka nadiif ah oo dahirsan ayaan ku weydiisanaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waatuu leeyahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalin yacni maalinka qiyaamaha loola jeedo ousan waxba taraynin wiilal iyo caruur iyo macnaha maal, waxyaabahaas aysan waxba taraynin ilaa qofkii ilaahay ula yimaado qalbi saliim ah maahane. waa qalbigan saliimka oo hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala aada weydiisanaysid tabaaraka wa tacaala. marka waxaan ku weydiisanaa ilaahayow qalbi saliim ah ayaan ku weydiisanaa. wa lisaanan saadiqa, ilaahu waxaan ku weydiisanaa carab oo yacni runlow ah ayaan ku weydiisanaa. wa lisaanan saadiqan. ayib lisaanan saadiqana waxaa loola jeedaa maxfuudan min alkadibi, qalbi laga xifdiyey been sheegid ayaan ku weydiisanaa. qalbi laga xifdiyey ballanka baxyo ayaan ku weydiisanaa ilaahayow. maxaa yeelay beentu waxay u hanuuninaysaa faajirnimo, sida nabiga uu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam. faajirnimaduna waxay ku hanuuninaysaa naar. qofku inuu been sheegayo ka zuuli maayo, ilaahay agtiisa looga aqoonsado inuu yahay kadaab, beenaale inuu yahay. marka beentu khatartaasay leedahay. qalbi marka saliim ah iyo lisaan saadiq ah ilaahay ka bari subxaanahu wa tacaala. wa as'aluka min khayri maa taclam. su-aalihii hore waxay ahaayeen su-aalo yacni khaas ahay ahaayeen. hadda marka su-aal waxaad weydiisanaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala caam ah oo waxyaabo fara badan ay soo gelayaan. ilaahu khayr kasta oo aad og tahay ayaan ku weydiisanaa. allah 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 allah, khayr kasto ilaahay waxba kama tegin macnaha. wa as'aluka min khayri maa taclam wa acuudu bika min shari maa taclam. haddana ilaahay waxaad ka magangelaysaa shar kasta oo ilaahay uu ogyahay tabaaraka wa tacaala. wa astakfiruka limaa taclam, yacni waxaan dembi dhaaf kaa weydiisanaa wax allaala wixii aad og tahay anigu aan iska hilmaamay, dembi iska sameeyey. dembiyaal fara badan oo anaga aan sameynay oo aan iska hilmaamnay aa jiro, laakiin malaa'igtu aysan naga hilmaamin oo saxiifooyinkeyna noogu qoran. ilaahu waxaan ku weydiisanaa inaad ii dhaaftid dembiyaalkaas ayaan ku weydiisanaa. maxaa yeelay innaka anta callaamu lguyuub, allah waxyaabaha qeybka ah allihii ku ogaal badan ayaa tahay ilaahayow. waa duco qiimo badan. intii aan ku kulmi doono يعني حلقة لحاد. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.